Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada muuqaalkeenan maanta oo aynu kaga hadlayno mid ka mid a falalkii wuxuushnimo ee ugu xumaa ee taariikhda soo maray kaasoo hal nin si uu xukunkiisa u ilaashado u dilay ku dhowaad 1 milyan oo qof. fadlan ha ilaawin inaad like, share iyo weliba faallo aad ku caawisid muuqaalkan, sidoo kalena ha ilaawin inaad subscribe saarto channelka adoo daaraya gambaleelka digniinta. Tadhiirintii ama sifayntii weynayd oo sidoo kale loo yaqaano magaca The Great Terror ama argagixii weynaa waxa uu ahaa olole siyaasadeed oo wuxuushnimo ah oo uu sameeyey kaligii taliyihii midowga Sofiyeeti ee Joseph Stalin. ololahan ama howlgalkan hadafkiisu waxa uu ahaa in laga takhaluso dhammaan xubnihii ka tirsanaa xisbigii shuuciga ahaa ee ka soo horjeeday xukunka Stalin iyo weliba cid kasta oo loo arkayey inay khatar ku tahay xukunkiisa. inkastoo ay qiyaasuhu kala duwan yihiin, haddana khubarada badankoodu waxa ay rumaysan yihiin in sifayntani ay galaafatay ugu yaraan nafaha 750,000 oo qof muddadii uu soconayay ee u dhexaysay 1936 ilaa 1938. wax ka badan 1 milyan oo qof ayaa loo diray xeryo cadibaadeed kuwaasoo la magac baxay magaca The Gulags. howlgalkan bilaa naxariista waxa uu gudaha dalweynihii midowga Sofiyeeti ka abuuray argagax aad u weyn, iyadoona saameyntiisa laga sii dareemayay gudaha dalkaasi sannado badan oo xigay. hogaamiyihii ugu horreeyay ee Sofiyeetka Vladimir Lenin sidoo kalena ahaa madaxa xisbiga Bolshevikisku waxa uu dhintay sanadkii 1924 isagoo aan magacaabin cid ka dambeynaysa. Stalin waxa uu halgan dheer la galay raggii ku mucaaradka ahaa, isagoona ugu dambeyntii ku kaliyeystay xukunka sanadkii 1929. markii uu Stalin xukunka la wareegay, qaar ka mid ah xubnihii xisbiga Bolshevikiska ayaa bilaabay inay awoodiisa su'aal geliyaan. bartamihii 1930yadii Stalin waxa uu rumaysnaa qof kasta oo xiriir la lahaa Bolshevikiska ama xukuumaddii Lenin oo halis ku yahay hogaamintiisa uuna u baahan yahay in laga takhaluso. si kastaba ha ahaatee, sababaha dhabta ah ee ololahani waa kuwa ay taarikhyahanadu ka doodaan. qaar ayaa ku andacooda in falalka Stalin ay keentay rabitaankiisa inuu helo awood kaligii talisnimo. qaar kale waxay u arkaan jid ama hab uu u maray si uu u ilaaliyo, u horumariyo, una mideeyo waddankiisa. dhacdadii ugu horreysay ee tadhiirintan ama sifayntani waxay dhacday sanadkii 1934 markii la shirqoolay Sergei Kirov oo ahaa mid ka mid ah dadkii ugu cadcaddaa xisbiga shuuciga. ninkan waxaa lagu shirqoolay xarunta xisbiga shuuciga waxaana toogtay nin lagu magacaabi jiray Leonid Nikolaev. inkastoo doorkiisu aanu caddayn, haddana dad badani waxay ku eedeeyaan in Stalin uu bixiyey amarka lagu dilay Kirov. kadib geeridii Kirov, Stalin waxa uu bilaabay ololihiisii sifaynta ahaa, isagoona ku andacoonayay inuu daaha ka qaaday qorshayaal badan oo la doonayo in lagu shirqoolo dhammaan madaxdii taabacsanayd isaga. kaligii taliyahani waxa uu bilaabay inuu dilo ama xidho cid kasta oo looga shakiyey inay xisbigiisa mucaarad ku tahay, isagoona ugu dambeyntii ka takhalusay dhammaan dadkii ka tirsanaa xisbigoodii hore ee Bolshevikiska, kuwaasoo ka qayb qaatay kacdoonkii Ruushka ee 1917 kaasoo xukunka u gacan geliyey shuuciga. dadkii la sifeeyey waxaa ka mid ahaa xubno badan oo ka tirsanaa xisbigiisa shuuciga oo xukunkiisa diidanaa, sidoo kale saraakiil dowladeed, saraakiil ciidan iyo dadkii lagu tuhumayey inay taabacsan yihiin. dhammaantood waa laga takhalusay. dhimashadii Kirov waxay sidoo kale keentay 3 maxkamadeyn oo aad loo baahiyey, kuwaasoo si guul ah uga takhalusay in badan oo ka mid ah siyaasiyiintii ka soo horjeeday ama dowladdiisa wax ka sheegi jiray. dhowr ka mid a dadkii ugu tunka weynaa xisbiga shuuciga oo ay ku jireen Lev Kamenev, Grigori Zinoviev, Nikolai Bukharin iyo Alexei Rykov ayaa khiyaano lagu soo eedeeyey. maxkamadeynahani oo la magac baxay magaca Moscow Trials ama maxkamadeynihii Moscow waxay ahaayeen kuwo si cad natiijadooda loo sii diyaariyey. raggan la soo eedeeyey ayaa dhammaantood qirtay inay yihiin khaayimiin iyo basaasyo. mar dambe waxay taarikhyahanadu ogaadeen in eedeysanayaashani ay aqbaleen qirashadani lagu khasbay keliya kadib markii la handaday lana jirdilay. dilalka iyo xidhitaanka waxaa lagu bilaabay xubnihiisa sare ee shuuciga iyo saraakiisha milatariga, balse markii dambe waa uu sii faafay isagoona gaadhay beeraleyda, dadyaga laga tirada badan yahay, farshaxamiistayaasha, qoraayada iyo weliba shacabka iska caadiga ah. haddaynu isku soo koobno, qof naftiisu halistaas ka badqabtay ma aanu jirin. Stalin waxa uu ka takhalusay sidoo kale 30,000 oo ka mid ahaa ciidankiisii casaa. khubaradu waxay sidoo kale sheegeen in 81 jenaraal oo ka mid ah 103 jenaraal uu ka takhalusay isagoo rumaysnaa inay afgambi qorsheynayeen. sifayntani waxay si rasmi ah u dhammaatay sanadkii 1938, hase yeeshee dad badani waxay rumaysan yihiin inaanu Stalin hawshiisa dhammayn ilaa uu ka dilay mucaaradkiisii ugu weynaa ee Leon Trotsky bishii August sanadkii 1940. Trotsky ayaa isagu tarxiil ugu maqnaa waddanka Mexico markan la shirqoolay.
Nikita Khrushchev oo ahaa ninkii xukunka uga dambeeyay Stalin waxa uu dhaleeceyn weyn u jeediyey cunfiga arxandarrada ah ee argagixi weynaa. hadal qarsoodi ah oo uu jeediyey Khrushchev waxa uu dhacdadan ku sheegay ku tagrifal awoodeed, isagoona garowsaday in dad badan oo lagu dilay ololahaasi ay ahaayeen dhab ahaantii kuwa bilaadanbi ah. falalkii Stalin waxay jabiyeen ruuxda ama mooralka dadyowga Soofiyeedka, waxayna sidoo kale meesha ka saareen kooxo gaar ah oo bulshada ka tirsanaa sida mufakiriinta iyo farshaxamaystayaashii. xukunkiisii keligii talisnimada ahaa waxa uu shacabkiisa ka dhigay kuwa gebi ahaanba ku tiirsan dowladda. tan la yaabka leh ayaase ah dadka Raashiyaanka ahi waxay ka aaminsan yihiin falalkaasi oo ah kuwa kala gedisan. inkastoo badanka dadyowga Raashiyaanka ay dhacdooyinkan u arkaan wax laga argagaxo, haddana qaar kale waxay aaminsan yihiin in Stalin uu xoojiyey gaarsiiyeyna midowga Soofiyeeti weynaan iyo haybad, inkasta uu qaababkan wuxuushnimada ahi adeegsaday. daawadayaal aad baad mahadsantihiin. fadlan ha ilaawin inaad like, share iyo subscribe ku caawisid channelka, sidoo kalena aad daartid gambaleelka digniinta si ay kuu soo gaarhaan muuqaaladeeda ugu dambeeya. fi amaanillah. asalaamu calaykum. kusoo dhowo baridiyo bar bulsho ama social media kaasoo ku ogolaanaya la xidhiidho lana wadaagto waqtiyada quruxda badan qaraabadaada ama asxaabtaada kugu qaaliga ah. featureska baridiya aad ka helisid waxaa ka mid ah storieski, newsfeedka, pageski, grooviski, blogiski, marketplace ama qayb aad alaabtaada ku iibin kartid si bilaasha, fundinka ama qaybta caawimaada, iyo features kale oo badan oo kugu diyaara baridiya. kala soo deg baridiya play storeka hadda kuna casuum asxaabtaada.